safiirka Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baalle ayaa maanta khudbad ka jeediyay kulanka golaha ammaanka ee looga hadlayay arrimaha Soomaaliya. Khudbadan ayaa inteeda badan ku saabsaneyd horumarka ee dawladda Soomaaliya oo hogaamiyay madaxweyne Farmaajo gaadhay 2 sano oo ay jidhay. Safiirka ayaa si nuqulka ugu dambeeyay ee khudbadiisa waxay ahayd mid si toos ah ugu socotay ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya laga eriyay Nicholas Haysom ee beesha caalamka. qaybtan ayaa ciwaan ahaan looga dhigay Soomaaliya iyada hogaamisa taageerada caalamiga ma hogaamiso Soomaaliya. Somalia leading international support, not international support leading Somalia. Fariintan ay dawladda Soomaaliya caalamku ugu sheegaysay in taageerada ay siiyaan Soomaaliya uu samacneed ahayn in talada dalka iyaga looga dambeeyo. Isagoo arrimahaasi ka hadlayay safiirka Soomaaliya u fadhiyay qaramada midoobay wuxuu yiri innaga waxa waajib naga saaran yahay inaan dib u aasaasno maqaamka Soomaaliya ee caalamka iyo inaan si firfircoon danaha Soomaaliya ugu matalno masraxyada caalamiga as their representative to give them a voice and represent. Waxa waajib naga saaran yahay innaga oo kuwa matalna inaan siino codka iyo matalaadda himilooyinkooda iyo higsigooda. Mudane madaxweyne iyo ogolow inaan arrinkani sii sharxo. Soomaaliya waxay kala saartay hay'adaha aan qaybta ka nahay iyo ficilada shakhsiyaadka saameynta dhaawac leh u geysan kara dalkeena aan cagaha adag ku taagnayn. Waa waxaynan aqbali karin ficilada shakhsiyadeed ee ka baxsan xeerarka iyo nidaamka aynu dhamaanteena raacno ee lagu gol leeyahay in lagu abuuro jawi aad u xun oo dhaawac gaarsiin kara horumarkii ay gaadhay bulshada Soomaaliyeed oo ay ku jirto waxyeeleynta horumarka muhiimka ah ee laga gaaray cafinta deymaha. dawladdeena waxay Soomaaliya ku jihaynaysaa mustaqbal cusub. Soomaaliya hadda kuma jirto xaalad ku meel gaar ah balse waa dal u madax bannaan dhammaan xuquuqdiisa iyo mudnaantiisa. We are battling against terrorism, clan mentalities and corruption. Waxaan la dagaalamaynaa argagixiso, maskax qabyaaladaysan iyo musuqmaasuq. Waxaan ka rajeynayaa hoggaanka qaramada midoobay inuu taageero istiraatiijiyadeena. ma soo gabagabay karo hadalkayga anigoo aan xubnaha golaha ammaanka ugu mahadcelin taageeradooda joogtada isla markaana aanan mar kale ku celin inaan ka codsado golaha ammaanka iyo qaramada midoobay iyo wakiiladeeda in waajib uu ka saaran yahay inay xushmeeyaan shaqada loo igmaday isla markaana aysan faragelin arrimaheena gudaha ayna Soomaaliya u ogolaadaan in iyaga ay maamulaan aayahooda. waxaana aaminsanahay wada shaqayn qaramada midoobay aan la yeelano oo arrimahani saldhig looga dhigay ay yeelan doonto miro dhal wanaagsan. dawladda Soomaaliya waxaa ka go'an inay ilaaliso guulihii la gaaray si waafaqsan dastuurkeena iyo xeerarka caalamiga. intaasi waxay ahayd nuqul ka mid ah khudbadii uu safiirka Soomaaliya u fadhiyay qaramada midoobay ka jeediyay golaha ammaanka. waxay idin soo jeedinayaan anigu Cabdi Saaq Gumeysi Diida. waxaa idin leeyahay dalkeena aad ku xirooba nabadgelyo.